السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا ayaan tan xogaha mashquulsanaa waxyaabo muhiim aan ku mashquulsanaa insha Allah waan idin share gareyn doonaa video dambe bismillah. Laakiin maanta waxaan ka hadlaynaa muhiimadda intuu casharkan u duway waxaa waaye inaan sii wada dabeecooyinkii sagaalka dabeecood aan ka hadlaynay. Maanta waxaan ka hadlaynaa distractibility level mise ilmaha kala duwanaansho u dhaxaysa ilmaha dhanka inay wax diiradda saaraan mise focuska saaraan ilmaha oo kuwana qaar mashquul waxyaabo yar ay ku mashquulaan oo focuskooda iyagoo lose garayaan kuwan waxaa waaye maanta dhan waxyaabo waqti dheer ay diiradda saari karaan mise ay ku focus garayn karaan. Marka waxaan ka hadlaynaa first sida kuwa oo iyago mashquulaan oo waxyaabaha easily distracted aan ka hadlaynaa. Kuwaas waxaa waaye usually like cuniga markaa dhahdo kale wax ii soo qabo waxaa ma samayn karo wixii uu hilmaama badanaana distractibility iyo xasuusta xogaa waxyaaba u dhaxeeya ilmaha distracted badanaa ma process garayn information ka maskaxda aadin oo na process garaynin waxaa way memoryga xasuusta iyo distractibility xogaa way la socotaa. So ilmahaas oo kale markaa dhahda jikada aad biyo soo qabo waxaa laga yaabaa inuu cunugii ku maqlay laakiin oo na process garaynin oo si fiican u fahmin oo markuu jikada aado uu mashquulayo meel kale iska aadaa mise wixii uu hilmaamaaba ma wixii loo diray iyo ma samayn karo mise cuniga activity markuu samaynayo kaleeto activity wax yaroo sameynaa activity kale oo arkaa haddana meel kale haddana activity kale u ordaa badanaa ilmaha usually ilmahaas alaabtooda ma sii aruursadaan marba meel ay usii ordayaan waxaa laga guriga inay ay sii qasaan because asaga waxaa loo wacaa cuniga wuxuu interestiga kale oo ishiisa qabatay waxyaabaha kale ishiisa qabatay marka cunigaas oo kale waxaa u baahanaa inaan ka caawino dhanka oo break qaado activity-ga markaa samaysid activity kale inta aad aadin you have to clean after yourself hadii kaleeto usually messy waa ilmahaas nidaamka iyo maskaxdooda distracted ay noqotaa ma ku fiicno dhanka nidaamka waxay u baahan yihiin marka xasuusin waxay kaloo u baahan yihiin homework oo kaleeto iyo project marka loo soo diro iskuulka ma xasuusanayaan markay sameynayaan iyo distract ay noqonayaan way ka mashquulayaan so waxay u baahan yihiin cunigaas more attention in homework markay sameynayaan lala fadhiisto oo reminder la siiyo mise erey adiga isaga cuniga asla ogtihiin oo marka uu mashquulo mise aragtid cuniga focuskiisa meel kale aaday oo wixii homework ka tagay mise soo fadhiya xataa oo fikir kale daydream wax la dhahan jiro ilmaha daydream waa qof fadhiyo oo soo jeedo laakiin maskaxdiisa sida riyo oo kale uu riyona laakiin uu soo jeeda oo daydream I don't know Somali exactly sida lagu fasirayo laakiin badana ilmahaas cod kale leh ma ahana iyo dhawaaq kale maskaxdooda iyo faadkooda mashquulinayo meesha ka wada cuniga uu fadhiyo amana kula fadhiyo cunigaas oo kale marka wuxuu u baahan yahay in koodo kale waxa isku ogtihiin soo xasuusisid inaad u samayso oo marka oo ogaado inuu attentionkiisa oo ku focus garay timer dadku isticmaalaan laakiin badanaa timerka waxaa waaye cuniga waa inuu ogaato haddii timer u shaqeynayo saacad oo kale inuu ilmaha qaar timerka stress u keenayo cunigii timerka uu kusii mashquulaa timer haddaa u qabatid so fiiri before you use the timer isku day inaa ogaatid cunigaaga timerka macaawina mise another stress kale u noqonaa lainu we don't want stress kale in loo keeno. So ilmahaas waxaa marka u fiican oo muhiim in tadriib loo sameeyo muhiim waa lainu adduunka hadda joogna attentionka ilmaha inay wax ku focus gareeyaan oo iskuulka looga baahan yahay shaqada looga baahan yahay noloshiyaaba muhiim u in focuska cuniga at least focuskiisa oo sanadkiisa isla socdaan waa muhiim. ilmahan expectationka focusku sometimes we can expect them focuskooda sii dheeraada cuniga sanadkiisa iyo focuskiisa badanaa isla socotaa average ahaanta marka ilmaha waxaan ku caawini karnaa kol markay yaryar yihiin ma arka aragno cuniga inuu focuskiisa dhibaayo oo kale waxaa activity waxaa kamid isticmaali karno inaan cuniga dhahno waa tirinaa number tirina 1 2 3 aan tirinaa markaan number qaldo kale ii qabo oo mise markaa aan erey qaldo game la ciyaarayo kaleeto oo cuniga marka inaa wixii markaa dhehe purposefully marka wax u qaladaas oo isaga marka attentionkiisa oo usoo qabto wixii qaladay oo u saxo mise xataa waxyaabo badan soo kale u use gareyn kartaa not only markay yaryihiin story u sheegi kartaa sheekada wax ka bedelay sheekada marka cunugina oo fahmo sheekada in wax laga bedelay oo soo qabo karo ma samayn karo marka attentionkiisa doona joogin. waxaa kaloo samayn kartaa book ina wax ku qorqortid mise buwaagta oo book wax ku qoran waxaa leedahay iga soo raadi xarafka s oo kaleeto s marka aragtid circle garay miskoobeyn circlekaasoo sameynaa circle s maadaama s raadinaya
cunugaas wuxuu u baahan yahay focuskiisa inuu saaro word search oo kale buwaagtana word searchiga la dhahaa mase puzzleka oo kale waxyaabaha oo require garaynayaan attentionka in more lagu practice gareeyo cunuga si attentionkiisa uu sii zaa'ido oo distractionkiisa uu yaraado oo way fiican tahay the more ay u yaryihiin the more slowly loogu bilaabo the more ay fahmaan cunugaas routine badanaa u muhiimsan in routinekiisa structurekiisa iyo nidaamkiisa iyo clean up after himself giisa in laba socdaan waa muhiim iyadana marka distractibilityga waxyaabay ku fiican tahay cunuga oo kale markuu yar yahay hadda cunugii wax ka qaadid iyo wax kale ku mashquul waxaad rabin cunugii inuu isticmaalo kale hadda ka qaadid kii distracted easy wax kale ku mashquuli kartaa cunugii uu hilmaama ciyow laakiin kan distractedka aan ciyow aan kan oo focuskiisa mar walba zaidka yahay waxaa laga cunugaas inuu wixii aan markaa ka qarisay weli oo sii ooyo wixii oo sii rabo ilaa wixii ciyow ma dhaafi karo wixii weli oo sii xasuusanaa so distractibility waxay ku fiican tahay ilmaha markay yaryihiin oo kaleeto makes life hooyooyinka easy a little bit for parents in cunugii waxyaabo kale lagu mashquuliyo cunugii waxyaabo aad rabin easy uga qaadi karto mashquuli kartid oona sii saameynaynin laakiin distractibility markaan fiirinayn tv-ga iyo screen iyo kuma jiraan iyo game iyo kaas waxaa laga yaaba cunug in maanta dhan tv-ga hortiis fadhi karo mise maanta dhan game ciyaari karo waqtiyo badan mise ipad ciyaari karo laakiin aana markay ay homeworks imaato mise markay writing imaado mise waxyaabo oo ayna iyaga jecleen badanaa waxaa lagu qiyaasaa cunuga waa inuu wax asaga oona xiiseyneynin laakiin require oo focuskiisa saari karo oo attention siin karo waqti 15 minute mise 10 minute oo dhammayn karo activity loo diray taas oo kale lagu qiyaasa laakiin laguma qiyaaso tv screen time because taas ilmaha badanaa kulligoodaba maskaxda different ay noqotaa screenka marka la sameeyo marka la ka hadli doona insha Allah marka cuniga waxaan u laabanaynaa oo cuniga focuskiisa jiro oo diirada saari karo wuxuu rabo oo cabaar wax ku activity sameyn karo mise homeworkiisa dhamaystiri karo oo ciyow waxyaabo kale ku mashquuleynin oo cod mise ka everything else kaas waxaa waaye wuxuu ku fiican of course homeworkiisa cunigaas badanaa nidaam waaye xasuusin badan kaama baahno wixiisu uu habaysanaa waxaa waaye attentionkiisa focuskiisa wuxuu laga baahaya focus uu saari karaa sida homeworkiisa oo kaleeto haddii structure la sameeyo mise haddii uu ogyahay cuniga in laga rabo waxaa inuu sameeyo laakiin cunigaasna waxa ay sometimes ay difficult ku tahay mise ay xoogaa yar ka waalid ay dhib nagu noqon kartaa cunigaas markii wax loo diro wixii uu sameynaya ciyow ma dhibay ku tahay inuu ka tago activity uu sameynaya mise waxyaaba uu markaas gacanta kula jiray dhibay ku noqonaya marka cunigaas rabti inaa wax kuu soo qabto mise wax kuu sameeyo because time dheer ay ku qaadanaya inuu ka tago wixii uu sameynaya saas daraadeed waxaa laga yaaba inaa cunigaas wuxuu u baahan yahay time inaan siina marka wax loo diraayo oo more extra time ilan waa ogtahay cunigan dhibay ku tahay ciyow kama tagi karo wuxuu sameynaya waxaa kaloo different ku cunigaas usually marka u wacdo kaleeto because maadaama attentionkiisa wixii uu diirada saari karo focuskiisa aad u joogo oo waxyaabaha kaleeto codadka kaleeto mise waxyaabaha kale oo iska bixi karo awooddaas oo leeyahay waxaa waaye marka u wacdo kaleeto magaciisa u wacdo maanta dhan waxaa laga yahay inaa isdhahda cunigan kuma maqlaynaya mise cunigan wuu ku dhegeysanaa marabo inuu ajiibo laakiin waxaa laga yaaba cunigaas inuu background noise oo kale waa ku maqlooya laakiin kuma maqlooyo si fiican so waqti waxaa laga yaaba waalidka inay ku sababto taas inay codkooda dheereeyaan mise inay multiple maanta dhan ay wixii kusoo celceliyaan ay cunigii u wacayaan mise wax ka dalbanayaan cunigaas oo kale marka waxaa naga caawin kara in wejigiisa face to face cuniga levelkiisa ay maadid oo marka isku face to face aan qatiin soo gaawaysid cunigi indhahiisa indhahaaga ay isla ekaadaan marka dhahdid waxa ka rabto dhahdid waxaana ka rabaa inaa samaysid mise waxaana rabaa inaa samaysid taas marka waxay gareyn cunigi inuu maqlo wixii uu focus ku jiray inuu ka baxo oo marka waxa u dirtay uu sameeyo kan kaleeto attentionka dhibaayo mise focuskasna ciyow focus gareysmaayeen isna wuxuu u baahan yahay inaad dhahdid waxaan kuu diray ma maqlaysaa maxaan kuu diray ma ogtahay waxaan ku dhahay jikada aad biyihiisoo qabaan ku dhahay maxaan kuu diray oo marka aa ogaatid in informationkii ay gaartay because sometimes informationkii iyo processingka dhib ku ilmaha distractibility oo distractibility qabaan processingkii dhib ku iyo memoryga
marka inay informationka aa ka rabtid ay wasal oo maskaxdiisa gashay inaa ogaatida fiican marka insha allah labadoodaba it's interesting waaye waana muhiim inaan ku focus gareyno saan nahay kawa ay distractibilityga dhib ku tahay mise ayna mashquulayaan in activity waxyaaba u sameyno aan sii caawino insha allah one more noo haray waa soo dhamaystirnay one more video noo haray 9ka then we're done thank you so much videogan wax ka faa'iiday please la share garay dadka وانا سوري جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته